بأوباهنتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوق مدينة سوق لي دكان ذي وفرن ذهب كيو بنانك يالا دركيو بنانك صدا أورن ومسلمين تنا أي مساجد كو أبوجين آذانك مدعن لكن حان وقت الصلاة صلاة حل جدي بعد دواتي عمر بن الخطاب مسجد صدا أوسي أجيا أبوج مسلمين تو أي أبوجيان وحكى عيسى قداش وده سيجدا كعيسى مركز عمر بن الخطاب وحرس رجل السعودي بكويري نكي جعلنو أركو آيات القرآن كأشقين عيسى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار آيات القرآن كو براكتيكال وشقين عيسى نكي ربعينو أركو وأكو أصحاب محمد أيقبو يرسلين مسكيته ومسي أقوق يعني. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم run ahaantii waano iyo wacdi salaadii ka hor baa laynoo jeediyey walaalayaal laakiin mar haddaan magaalada imanay inaan dadka salaano oon iska ziyaarano oo nila kulano annakay farxad noo tahay run ahaantii sheekhaa inala hadlay qabla duhurkii inaan ka daba hadlay runtii aan uma jeclayn laakiin haddana mar haddii aan ziyaaro u imanay waana ziyaar waa in yar waa isbarharujinaynaa hal mid un baan ni odhan naftaydana aan u sheegay ininkana aan inii sheegay sida masaajidka dhexdiisa muslimiintu ay ku yihiin waa inay ku ahaadaan masaajidka banaankiisana masaajidka dhexdiisa sideen ku nahay marka koobaad qofka maskiidka marka uu imanayo wuxuu soo qaataa dhar aada u qurux badan oo daahir ah khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin baa ilaahay yidhi marka labaadna qofku uu soo tahaaro qaataa salaada furaheega buu nebigu yihi waa tahaarada qofkaan soo tahaaro qaadan buu nebigu yihi salaad ma leh qofka salaad aan lahayna buu nebigu yihi diin ma leh qofka ammaano aan lahayna iimaan ma leh salaaduna diinta islaamka waxay ugu jirtaa halka kurku bini aadamka ugu jiro laa salaata liman laa tuhuura lah walaa diina liman laa salaata lah walaa iimaana liman laa amaanata lah inamaa mawdicu الsalaati fi اddiini ka mawdic الra'si cala اljasad fi sunan الطabri ayuu ku sheegay raxmat ullaahi calayh salaadu markaasi waa udub dhexaadka diinta islaamka axkaamta islaamka in badanaa nabigeena sal alla alay wasalam jibriil baa loogu soo dhibo asagoo dhulka jooga nebiga loo keenay amaa salaada may nebi maxamed baa loo yeedhay calayhi salaatu wasalaam isagaa daareegta nebi maxamed ilaahay uga soo qaaday deedna nebigu inaku inoo keenay marka horena waxay ahayd 50 salaadood markii dambena 5 baa laynooga dhigay camalkiina 5 baa laynooga dhigay thawaabkiina 50 baa laynooga dhigay man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha salaadu marka waxay dhahdeen culimmadu waa diintii islaamka oo dhan baa salaadii ku dhan mafhuum diin oo dhan waxay ku dhan tahay waa salaada soonkii baa ku jira oo xajkii baa ku jira oo xuquuqdii bini aadanka salaada dhexdeeda ku jirta oo dikrigii baa ku jira oo tilaawadii qur-aanka ku jirta oo istikfaartii baa ku jirta oo sadaqadii baa ku jirta oo caqiidadii iyo iimaankii baa salaada ku dhex jira oo mucaamaladii iyo mucaasharadii baa salaada ku dhex jirta diintii islaamka oo dhan
meesha keliya ee laga micyaarka salaadu waxay tilmaamaysaa diinta islaamka oo dhan. caqiidadii baa salaada ku jirto oo qofku 10 daqiiqo ee imaamka gadaashiisa qofku uu joogo waxaa laga dalbayaa qalbigiisu inuu xaadir ahaado oo ilaahay ku mashquulo oo meel kale qalbigu u jeesan, meel kale inuu qalbigu u leexdo la dooni maayo. taasi waa kow. sahwigu uu jiraa oo dee salaadii waa shaydaanka inagu dadaalaya si uu salaadeena sahwi uga dhigi lahaa, oo marka horeba qofka shaydaanku wuxuu kala dadaalaa qofka inuu hado muslim suurada oo salaadii masjidkaana ku xidhnay. haddii ilaahay uu soo dhaafiyo qofku masjidka soo galana shaydaanku ma hadhee wuxuu ku dadaalaa qofka salaadiisa inaanan laga aqbalin. deedna waxaad arkaysaa mid tukanaya laakiin salaadiisa jahli buu ku tukanayaa, culimmadiina way ag fadhiyaan mana weydiinayo masaa-isha ka qaldan. haddana haddii uu dadaalo culimmadii intuu masaa-isha diini weydiiyu ka saxdo oo loo saxo, haddana shaydaankii hadhi maayo, wuxuu rabaa qofkaasi salaadiisaasi inaynan sahwi ka bixin. udkur kada udkur kada udkur kada buu le waxaa xasuuso ilaa uu qofku salaadii ka baxaba isagoo ka warqabin inta rakcadood ahaydba. marka qalbigan waxaa loo baahan yahay salaada dhexdeeda in lagu xaadiriyo. waa meesha culimmadu ay yidhaahdaan luqmaan alxakiim markuu inankiisa la dardaarmayo waa kii ku lahaa majaalis fara badan ayaan la soo fadhiistay nebiye ay fadhiyaan 8 kelmadood baan kasoo faa-iideystay. wuxuu yihi 4 waxa weeyaan buu yihi markaad salaada tukanaysana qalbigaaga ilaali, cunno markaad cunaysana calooshaada ilaali, dad markaad la joogtana carabkaaga ilaali, aqal xaqanaas markaad joogtana indhahaaga ilaali. labana ha iloobin, labana ha xasuusan. labada uu ku yihi maaragtaani ha xasuusan waxa weeyaan wanaagga dadka aada u sameynaysa ha xasuusan, isaa'at annaasi ilayka dhibaatada dadku adiga ay ku geysanayaan ha xasuusan. labana ha halmaamin buu ku yihi allah wadaar alaakhira ilaahay ku abuurina marna ha halmaamin, daarta aakhiradeed u socotana ha iloobin buu ku yihi. salaada markaan ku jirna waa meesha la doonay qalbiga in la ilaaliyo, oo halkaasi waa caqiidadii. xajkii baa salaada ku jira bay culimmadu yidhaahdeenoo qofku marka uu qibla halka uu u jeesanayo waa qibladii. qad naraa taqaluba wajhika fi الsamaa falan nuwaliyanaka qiblatan tardaaha baa nabiga lagu yihi sal lla ly slam fawalluu wujuhakum shatra almasjid alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum. nabigu sal alla alay wasalam qudus bay marka hore saxaabadu u jeesanaya masjid alaqsa, laakiin nabigu wuxuu jeclaa in maka looga dhiga qibla, leanna waa maqaamkii nabigeenu uu ku dhashay weeyaan, waana maqaamkii nebi ibraahim calayhi salaam uu dhisay weeyaan. deedna ilaahay caza wajalla isagoo manshaha nebigiisa mar walba u raacaya ayaa ilaahay ku yihi mar walba waan ujeedaa inaad xaggayga soo eegaysee ood xagga samada aada soo eegaysee, maanta laga bilaabaa qibladaad raalliga ka ahayd baan kuu jeedine xagga u jeesa baa nabiga lagu yihi. adiga iyo dadka muslimiintuba qibladiinu maanta laga bilaabaa waa maka. nin saxaabada kamid ahay oo ansaari ahaa oo salaadii duhur nabiga qiblada maka kula soo tukaday ayaa qabiilkiisii halkay deganaayeen buu u yimid isagoo u sheegaya aalaadkan inaku aan haysanee muwaasalaadka iyo itisaalaadkan caalamigana berigaa ma jirayne qof baa intuu risaalad loo dhiiba dadka u geeni jiray ama fariinta gaadhsiini jiray. wuxuu u yimid qoyskiisii oo salaadii casar baa 2 rakacana ay u jeesteen quds ayuu aayadda korkooda isla taagay. markaasuu yihi qibladii waa la xawilo, waxaa loo xawilay maka. waxaa la yihi fi ahnaa'i sujuudihim ayagoo sujuudsan ayay qiblada maka usoo jeesteen baa la yidhi, sida ilaahay nabiga u adeecayeen saxaabadu. eeg salaada soonkii baa ku jiro, inta qofku salaada uu ku jiro cuno ma cuni karaa, biyana ma cabi karaa, ay jabi salaadu. adaa alxuquuq baa ku jira salaada dhexdeeda. waa kii nabigu lahaa liinuu biaydi ikhwaanikum, safka markaad istaagaysaan walaalihiin gacmaha u dabciya buu nabigu yidhi. mucaad binu jabal markii laga soo cawday inuu dadka salaada uu ku dheereeyo, nebigu mambarka intuu istaagay buu ku yidhi waryaada waxaa inagu jira buu yihi rag salaada ummadda iyo diinta ka firxinaya oo ku adkaynaye, midkiin markuu ummad salaad uu ka bixinayo ha u khafiifiya buu nabigu yihi. maxaa yeelay gadaashiisa waxaa taagan kii da-da weynaa iyo kii daciifkii iyo kii bukay iyo kii muraadka lahaa. salaada dhexdeeda buu nabigu ku ilaalinaya xuquuqda bini aadanka. xataa mararka qaarkood nabigu wuxuu odhan jiray waxaan jecelahay salaada inaan dheeraysto, laakiin markaan maqla buu nabigu yihi ilmaha yar oohintiisa
hooyadii oo gadaasheeda ku tukanaysana ay walwalka iyo walbahaarka ay dareemaysa markaan xasuusto ayaa salaadii aan islaha ha dheeraysid waan gaabsadaa buu nabigu yihi alayhi salatu wasalaam ummadda waan u gaabiyaa xuquuqdii baa salaada lagu dhex ilaalinayaa xuquuqdii dikrigii baa ku jira tilaawat alqur'aankii baa ku dhex jirta salaada qalbigii xaadira la rabaa in lagu tukado salaada markaa maskiidka qofku markuu soo galana dee maskiidka dhexdeeda qofku afcaal xun muu la imanaya may hataa laba qof oo hadalka kor u qaadaysa hadduu arko wuxuu odhan war meeshu waa maskiida xishooda iska daa qof dagaalamaya iyo qof maskiidka dhexdeeda been ku sheegaya iyo mid politic ka sheekaysanaya warkiisa iska reeba xataa ka qur-aanka akrisanaya baa la yidhi maskiidka dhexdeeda markaad joogto ha usoo akriso dadka salaada tukanaya ha ku dhibine sidan maskiidka aan ku dhexnahay baan u baahannahay marka inaan banaanka ku ahano masaajidka dhexdiisa been inaad ku sheegtaa waa mustaxiil banaankana been ha ku sheegin maskiidka dhexdiisa inaad qabyaalad kaga sheekaysaa waa mustaxiil banaankana qabyaalad ha kaga sheekayn maskiidka dhexdeeda inaad ummadda aad ku dhacdaa waa mustaxiil banaankana ummadda ha ku dhicin maskiidka dhexdeeda inaad qof ku dulmidaa waa mustaxiil banaankana dadka ha ku dulmin maskiidka dhexdeeda qof inaad u itaal sheegataa waa mustaxiil banaankana ummadda ha u itaal sheegan suuqu lmuslimiina ka musallaahum cumar binu khadaab baa odhan jiray suuqa muslimiintu waa sida masaajidoodo kale ayay yihiin buu yihi sida masaajidka dhexdiisa qofka muslimku uu isku dhowrayo uu iimaankiisa u ilaalshanayo uu salaada u ilaalshanayo uu cibaadadiisa u dhowranayo uu ilaahay u baryaayo u tawaaducayo banaankana waa inaad ilaahay u tawaaducdaa yaa cibaadii ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun baa ilaahay yidhi ilaahay baa le addoommahaygiio dhulkaygu waa ballaadhan yahay dhulkana ilaahay baa iska leh ina alarda lilah arlada ilaahay baa iska leh markaa masaajidka dhexdeeda saaad ilaahay ugaga baqayso waa inaad meheradaada ilaahay dhexdeeda ugaga baqdaa xaaskaaga iyo ubadkaaga markaad la joogta waa inaad ilaahay kaga baqdaa safar haddaad tahay safarkaaga ilaahay waa inaad kaga baqdaa tijaaradaada waa inaad ilaahay kaga baqdaa xafiiska aad fadhida ilaahay waa inaad kaga baqdaa mas-uuliyadda ummadeed ee ku saaran intay dooniba ha leekaatee waa inaad ilaahay kaga baqdaa waana gaayat likhlaas inuu qofku meel kastuu joogaa ilaahay uu ka baqaa waa gaayat likhlaas waana halkii asxaabta nebi maxamed ay ka gaadhay iimaankoogu ka gaadhay weeyaan ibnu cumar radia allahu canhuma ayaa nin adhi la joogu soo agmaray markaa buu yihi adhiga caanaan uga baahanay caana naga sii markaabuu caanihii uga liso uu siiyey markaa buu yihi bal ha jarabtid oo ninkan ha ikhtibaartid markaa buu yihi urgac nooga qal markaasuu adhiga anigu ma lihiye sayidkaygii baa loo raaciya alghanam baan ahay anigu markaasuu yihi dee sawdiga caanihiisiiba noo na siiyey ma cadkiisana noo qal markaasuu yihi caanaha waa lay idmay socotada inaan u liso laakiin neef inaan u qala layma idmin buu ka yidhi u jarabay marka uu ikhtibaarayay wuxuu yihi waxaad tidhahdaa dhurwa baa iga qaatay dhe so dhurwa ma tidhahdaan mise waraa baad tidhahdaan waa isla meeshii uun markaasuu ku yidhi ila ninkii sayidkii xoolahan lahaa ku arki maaye xoolaha markaad hoysana neefkii markuu ka tabu waayo uu ku wareysana waxaad ku tidhaahdaa dhurwa baa iga qaato oo iga dafay ku dheh markaa buu ku yidhi ninkii reer baadiye rabbul ghanam hadduusan i arkayn sow rabbigay arki maayo buu ku yidhi ninkii sayidkii xoolaha lahaa i arki maayo waa runta fa ayna allah sow ilaahay arki maayo haddana hal yahay halkeen ka gali meel ilaah looga baxsan may jirtaa may ibnu cumar uu madaxuu sidaa u ruuxo wuxuu yihi kelmadii buu ibnu cumar kusii celcelinayay ilaa ninkan uu jarabayey u ikhtibaarayay muraaqabadiisu intay la eg tahay buu eegayey markaa buu ihi fa ayna allah fa ayna allah fa ayna allah yacni waxaan ka wadaa islaax zamankii nabigeena sal allau alay slam iyo qarnigii ummaddu ay wanaagsanayd halkaasuu ka gaadhay ummaddu inay hagaagto ilaa ka miyiga buuraha dhexdooda xoolaha ku dhaqanaya inuu ku xisaabtamo yidhahdo ilaahay baa arkaaya ilaahay baa aniga i maqlaaya inankana masaajideeni marka lasoo galaa lagu leeyahy kabahaga kiishka ku rido ayaa lagaga ridanaya war ayaa lagaga ridanaya waa muslim inta badan waa muslim jamaacadadan dacwadda tabliiqa waa taqaanaan oo niman bakistaaniina markaa waddankayga jabuuti ayay maalin meel tuulay joogeen oo markaa dadkay wacdinayeen oday baa ku yidhi war anaku 100% muslim baan nahay maxaad naga soo doonteen ragga ku dhab buu iga yidhi waa hadalkeennii dee soo maha soomaalida 100% muslim buu ilahay naga dhigay marka nin caalima ayaa jamaacadda watay oo xikmad badnaa wuxuu yidhi 100% haddaad muslim tihiin masaajidada markaad galaysaan kabihiina banaanka maxaad ugu soo dhaafi weydeen buu ku yidhi
kan kabaha laga ilaalinaya waayo waa cali waa cumar waa maxamed waa mustafa waa mukhtaar waa mina inaka muu naga mid yahay haddaad muslimiin aad tihiin 100% way fiicantao maba diidanine maxaad banaanka kabihiina ugu soo dhaafi weydeen buu ku yidhi kaa kabaha banaanka aad ugu aamini weydeen eed uga aamin baxdeen inaad kabihiina banaanka kusoo dhaaftaan ee isagana maaragtaane qalbigiisu intuu dhintay masaajidka ilaahay ka xishooni waaye usoo galaya maskiidka dhexdiisa dadka inuu ku xado kaasaa rabnaa siduu u islaaxi lahaa buu yidhi ininku waad dadkii wanaagsanaa baa tihiin inima soconno ininka buu yidhi laakiin waxaana leenahay kan saalixow muslix noqo oo dadka islaaxi marka allah inagu anfaco marka sidaan masaajidka dhexdiisa ku nahay inaan banaanka sidaa ku ahaano shaqo intee leeg ba u baahan tahay may fahamteen halkaan ka hadlayo shaqo intee leeg ba u baahan tahay cumar bnu khadaab radia allahu canhu suuqa madiinuu soo galay dukaanadii oo furan dahabkii oo banaanka yaalla dharkii oo banaanka sidaa u wadhan oo muslimiintuna ay masaajidka u aguugeen aadaankii ma dhicin laakiin xaana waqtu salaa salaada xilligeedii baa dhowaatay cumar bnu khadaab maskiidku sidaa usii eegaya aguugga muslimiintu ay aguugayaan waxaa kacaysa gadaashooda siigadaa kacaysa markaasu cumar bnu khadaab wuxuu raggii la socday buu ku yidhi ninkii jecel inuu arko aayaddii qur-aanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar aayadda qur-aanka practical oo shaqaynaysa ninkii raba inuu arkow waa kuwa asxaabu maxameda eega buu yidhi siday maskiidka ugu sii aguugayaan innaga maskiidka markaan soo galayna hal baan u soo galnaa markaan ka baxaynana jam masaajidkii baa jama laguna yar fadhi war waddada iyo suuqyada jam lagu yaqaanay maskiidkii waxaa lagu leeyahay masaajidka iridiisii baa jame sheekh iska yar fadhi masaajidka waxay ahayd in hal looga baxo marka la imanayna in jam lagu soo galo ayay ahayd maadaama masaajidka hal aan u soo galayno jamna aan kaga baxayno waxay ka dhigan tahay acmaasha masaajidka dhexdeeda aan ku hayno kuma kalsoonin ee waxaan ku kalsoonnahay meherahdeena ashyaada taalla ku kalsoonnahay allah ina fahamsiiya inaan masaajida sidaa ku nahay dhexdiisa banaanka aan ku ahaana waxay nooga baahan tahay shaqo dheer shaqadaana culummada keliya lagu hadlayn maaye dhammaanteen waxaa la rabaa inaan gacmaha isqabsanoon diinteennan siday dibadda uga muuqan lahayd aqaladeenna uga muuqan lahayd tijaaradeenna uga muuqan lahayd aswaaqdeenna uga muuqan lahayd waa inaan shaqadaa kulligan u wada kacna weeyaan insha allah dhahada waa nagu dheereeye raalli ahaada waqti dahira weeyaan waa xilligaad qada tegayseen eed qayluulo tegayseene insha allah waa nila joognaa allahna inagu anfaco diinta dadaalkeygana hanu wada kacna insha allah dhahada dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo sala allahu calaa sayidina